hay-adda waddooyinku markii hore waxay ahayd hay-ad madax bannaan muddo dhexdii ahayd ayaa waxaa la hoosgeeyey hay-addaasi wasaaradda madaxtooyada waxaan xasuustaa dad badan baa waxay odhan jireen haddii madaxtooyada la hoosgeeyey waddo dambe oo la samayn doonaa ma jirto ilaah baan idinku dhaariyey intii hay-addaasi ay wasaaraddaa hoos tagtay intee wadda ayaa qabsoontay oo dalka ka hirgashay lama qiyaasi karo hawshii waddooyinku hadday bilaabatay soo maa wax dhammaaday iyo wax socdo soo maa wax ilaahay loogu mahadnaqa soo maa waxaana la idiin sheegayaa in caalamiyan tion mucaawano toosa weligeed waddooyinkaan laynoo siin mashruuca Somaliland Development Fund $6 milyan ayaa markii koowaad laynoogu deeqay oo sanadkan lagu hirgelin doonaa waddooyinka ay mararka qaarkood u dhixi jireen gabiley dhowr maalmood marka ay da'aan roobabku waxaa ilaahay mahadiya madaxweyne ilaahay ku waafajiyey inaad ummaddaa ku kadeednayd dhulkan quruxda badan ee feertaylka ah ee beeralayda ah hase yeeshee baabuurta marisadoo dhibaato ku ahayd inaad maanta laamida u dhex marisay waa ilaahay mahadii adigana madaxweyne mahad ayaa lagugu hayaa gobolkan Gabiye waxaan sidoo kale u mahad celinayaa cid kasta oo naga gacan qabatay oo wax naga tartay waxaan jecelahay inaan horta cadeeyo wadadu 17 kiiloomitir iyo barka halkan soo gaaray waxa weeyaan istabta annaga ay shaqadeedu tahay wadooyinka magaalada gudaheeda waxay iskale dawladaha hoose annagu waxaan soo gaarsiinay istabtii wajaale inta istabta xagga ka xigtana waa kii uu yiri kiiloomitirka abiiba xukumayo waa reer wajaale hadii wax kala bixi weydeen bal kiiloomitirkaas u bixiya laakiin waxaan jecelahay runtii dad badan oo waxa weeye wax ka geystay oo ka mid yahay Maxamed Aw Saciid Somkeebel oo nagu caawiyo iyaamii u horeysay wadadu culayska nagu lahayd inuu qalabka nagu caawiyo ciid ay nala gooyaan wax weyna runtii nagu tartay dhowr kiiloomitir oo horeeyay si aanu inqanno sidoo kale waxa weeye dawladda hoose Gabiley oo 2 kiiloomitir bixisay iyadana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa siniyad samiya oo mar walba ay barbar taagnaayeen jaamac Omar Company oo kiiloomitir iyo 100 xaboo daamurna siiyay isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa dadkii gacanta ay naga soo gaadhay ee nagu gacan qabtay runtii markii aanu bilaabaynay wadada aad baan u niyad samaayo waxaan islahaa ganacsatada reer wajaale lacagta ka buuxda ayuu baad ka ururin hadaa bad bixisaan marka kale iyaga bixin laakiin Ilaahay wuxuu qadaray intii wax ka geysatay intaas ay ahayd hawlisa ma dhamaan على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحدا يا آدم والبيت هاي مانتا أنا وقت جينا الصعدة إن أنا كسر قيم قبل مانتا ولتاب تحل ولتاب كودرك الربيع توج على ودراسه بالمدة ذكر كوله ودراسه قبل كهمية دوينوله ودراسه وحد وضب بدن وروفا لذكر كده كان من المهنة البلق قاطي وأنا مرور بفلين إنه وحنا نبضي الشعب هو بلق قاطي وحن قبا ودويكو عامهان إنه واحد ذلك يسكحر يهين إنه واحد المنطق بدين يهين إنه واحد ذلك هو مريتيسا شو هاي هرجل اللي ينقاشين يهين marka waxaan aaminsanahay gobolka kan oo kamid ah gobolada wax soo saarka badan ee waxtarka badan qaranka u leh ee la xiriiriya Itoobiya la xiriiriya wax badan u tara ummadda dhinac kasta oo laga eego inay faa'iido badan u soo kordhinayso gobolka iyo xiriirkiisa dalkiisa kale la leeyahay iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga oo la leeyahay Itoobiya intaba inuu wax badan ka tari doono ummadda dadka wuxuu soo kordhin doono marka waxaan ballan qaadaynaa inaan mar walba ku dadaalno oo wadno dadaalkaan ku jirno inaan horumarino wadooyinka dhismooda horumarintooda dalka isku xidhkiisa isu keenkiisa waaragtan ilaa shaqooyinka laga wado wadadii Ceragaabo ummadda oo dhan ka wada qayb gashay ee shacbiga oo dhan ka wada qayb galay waxay noo ballanaa inaynu taasi noqoto dariiqaynu ku soconno oo ku wadno inaynu ummadda dalka isku xidhno horumarin